inankan dhalinyarada asaguna wuxuu ka mid yahay ergooyinka markaasi xisbiga ursiyaasadeedka ka ah shirweynihiisu shalay halka ka furmay qaybta ka aha ku soo dhawow Dalmar Media bal magacaaga iyo halkaad ka timid waa ku dhowahay Dalmar Media aad baa u mahadsantihiin magacaygu waa Cali Cabdi Cali Kiimikan ku magac dheerahay waxaan ahay aqoon-yahanintii laga casumay caasimadda Garowe waxaan ahaa ergey ka mid ah ergada lagu casumay ahna xubin ka mid ah golaha dhexe ee shalay la ansixiyay la doortay urur siyaasadeedka ka runtii jawi fiican ayuu noogu bilowday shalay shirku waxaana noo qabsoomay howlo badan ay ka mid yihiin in golihii dhexe la doorto la ansixiyo loo gacan taago sidoo kale waxaan ansixinay barnaamijkii siyaasadda ee urur siyaasadeedka ka sidoo kale dastuurkii uu ururku ku shaqayn lahaa waxaan kaloo aan doorannay guddoomiyihii ku-xigeenkii iyo ku-xigeenkiisii labaad runtii jawi fiican ayuu noogu soo dhammaaday madaxweynaha ayaana soo xiray maantana waxay ahayd gebagabadii iyo intii yaraydee iyo dardaarankii iyo qof walba oo ka mid ah ururkan in uu qaado barnaamijka siyaasadeedka dastuurkanna uu hirgeliyo uuna ku dhaqmo runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Dr. Saciid Cabdulaahi Deni oo runtii suurtageliyay sanadkii ugu horeysayba in la furto urur siyaasadeedyo lagana gudbo qaabkii hore ee wax lagu soo dooran jiray oo hadda loo gudbo qof iyo cod dhalinyaradii fursad ayay heshay runtii waxaan leeyahay dhalinyaradu waa inay ka faa'iideystaan urur siyaasadeedyada furan waa inay ka faa'iideystaan siiba ka waxaa laga siiyey qodob ka mid ah oo waxa weeye u qareemaya haweenka iyo dhalinyaradaba sababtoo ah dadka ugu badan ee Soomaaliyeed ama markaan u nimaano Puntland waa dhalinyarada marka waa fursad aad u weyn loo baahan yahay inay ka faa'iideystaan loo baahan yahay inay u soo banbaxaan loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan loo baahan yahay inay siyaasaddii waagii hore odayaasha jeebka ugu jirtay inay u soo banbaxaan cid walbo han siyaasadeed leh inay ka qayb qaadato waxa weeye codkeedana uu qiimo u yeesho runtii maantana sidaas ayuu noogu soo gabagaboobay waxa weeye hadda ka bacdina insha Allah billahi kariim waxaa loo baahan yahay dhammaan xubnaha ka mid ah urur siyaasadeedka ka inay shaqeeyaan oo effort badan la geliyo lagana qayb qaato sidii looga marin dhalin lahaa inay Puntland ka dhacdo one vote one man